maxadka faafinta islaamka ayaa kulan diimeed u qabtay in ka badan 150 xubnood oo isugu jira ardayda jaamacadda iyo dhalinyarada. kulan diimeedkan ay ka soo qayb galeen madaxda maxadka faafinta islaamka, culimo, waxgarad iyo marsharaf badan ayaa lagu qabtay hotel Deero ee magaalada Burco. kulan diimeedkan ayaa mid dhalinyarada laga wacyi gelinayo ka fogaanshaha wax kasta oo diinteenu aanay banayn iyo xurmada ay diinteenu siisay nafta bini'aadamka. gudoomiyaha maxadka faafinta islaamka Maxamed Cabdi Yuusuf Mooge ayaa isagu faahfaahin ka bixiyay muhiimadda loo qabtay kulan diimeedkan. وتعيها ويكون واعي بالدينه إلهي وشيبه واسد انت صايد كفر هذا قادر ايسان يا تهريب اللي كلا هذا اسمك اللي كلا هذا محوها تهريب واحد الصدور نكي قبي وحول نكا سوق الله اما كبتيا اما كل يقوله بدخل كل شيء كان يكون هاي اما سكوك شا نول با وحي لو كتب والله قول سيده لنا ينانو سو قررسن كاهل اوغاد اسكا اوغاد ويدكا Sheekh Salmaan Saciid Cali ayaa kulan diimeedkan ka jeediyay muxaadaro ka hadlaysa sida diinteenu u adkaysay dilka qofka muslimka ah. diinteenu waa diin macaan, waa diin markaasi aan lahayn tashaddud, waa diin wasat oo dhexdhexaad ah, waa diin aan lahayn quluwi iyo xadgudub. marka in la iska ilaaliyo fikirkii quluwiga ah iyo xadgudubka aad iyo aad u muhiimtay. waxaanu quluwigu fudud yahay xilliga dhalinyarteeda. waxyaalaadka islaamka aanu ilaalinta nafta. Sheekh Mawlid Axmed Xasan ayaa isaguna tilmaamay dhibaatada iyo halista ay tahriibtu leedahay. maanta waxa laga yaabaa inaan maqallo waxa la yiraahdo wasiiqatu xuquuq al-insaan tasaatir ama qoraallo ay samaysteen xuquuq al-insaanka loo samaysto. waxaa mudnaan leh shariicada islaamka inaga xuquuq al-insaanka ay siisay. waxa la yidhi munda ilaahay uu abuuray nabiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa xuquuq al-insaankeenu inaga soo bilaabmay. maaha qarniga 20aad, maaha qarniga 19aad, maaha qarniga 21aad. inaga xuquuq al-insaankeenu wuxuu bilaabmayaa xaqa nafta la siiyey iyo karaamada la siiyey waxay bilaabmaysaa munda khalaqa Allahu aadam calayhi salaam. kulan diimeedkan ayaa mid si weyn u soo jiitay dhalinyaradii ka qayb gashay isla markaana ay wax badan ka kororsadeen. Kays Axmed Digaale, Home Cable TV, Burco.